الله الرحمن الرحيم كلنتي wanaagsan dhamaantiinba meel kasto hawada aan iska daawanayno waa barnaamij hor leh oo aan doonayno inaynu hawada ka saaxiibno oo halkaan ka wada daawano madadaala hal kurigiisuna uu yahay konton sheeko iyo sheeko waxa uu ka kooban yahay xikaayad aan todobada buuyiso gudbi doona hadaan nahay bahba Somali News TV waxaana hawada ka daawan doontaa waqtigan oo kale xabsnaada balanteena anna waxaan idinka ballan qaaday hadii la idmo inaan todobada ku soo dadaalo وأردين سو قد بيشيكو ينقوا وحيسها بدن ويجا أرله وحد اللي مركا كسود داشان شقضها إذا كود داشان كليه نكسو يتان كسو حقيقة هذا الحين تسياسة هكولا دحين عرض يدالك عروتين يوبتكين يوريهن بجيست الشيكو كان كان يسقوها بيو أما سوقا تبوكا كنت شيكي شيكو حكاية كسكويا لين لبا كميدون خريطة إذا كو فرحسن ساحبا هذا لكو ريان دين بلابه marka la furayo sheeko gaaban barnaamijkan iyo sheekooyinka lagu soo qaato qaar kamida ayaan barnaamijkeena ku soo qaadanayna waa laba sheeko oo mid leeyahay The Faithful Wife ama marwadi atins baan ugu bixiyo oo Greega ta kalena waa sheeko dalka Ingiriiska caanka ku ah oo leeyahay Green Knight oo ageesiga cagaara ta koobaad hadaan hadda bilaabano oo marwadi atins wayga array marka hore dalka Greega oo dalka weyn taariikhdiisu oo taariikh badan ku leh suugaanta waxbarashada dawada nooc walba ilaa maamulka dimuqraadiyadda loo yaqaan ayaa dhinaca suugaanta sheekada gaaban ay tahay sheekadii ugu horeysay ee ku qoran qoraal ee adduunka la helo laakiin aan la helin ninkii qoray waa marwadi atins waaga sheekadana ay dhacday dalkaasi Greega qawaaniintiisa waxa kamid ahaa haddii qof qaadaca dariiqa la qabto oo atuuga ugu xun ولا دلدل جري وانا الدلي جري دولي بو حلولين جري ميتكيسن لما آسي قبورها اللي جري انت هذا يسو خصوصيو waxa iyana jirtay magaalada Athens oo kamid ahay boqortooyinkii Greek marka caasimadooda mid kamid ah oo loo yaqaan boqortooyada Athens ayaa waxa aan ku noqday qoys dhalinyaro ah oo inan isqaba ah oo la hadal hayn jiray had yeer waxa lagu hadal hayn jiray inanka inantaas waxa ay isu jeceliin si daacad suuyin si isaga dambeeyaan si isu xanaaneeyaan kalgacalka isu qabaan dadka carabkoodu waa balaaye markiiba waxa la soo hadal qaajir oran jiray tolo hadii midkood dhinto ka kale muxuu yeeli doonaa labada qof ay isqabaa si isu jeceliin waa qadar ilaahay markii dambe tii Allah u timi inankii oo inankiiba ka horreeyay inantii markay dhimatay wixii la sheegay markuu dhintay wixii la sheegay ayaa inantii qabrigii laga dulkicin ka riwaayada qabrigii inanka la galiyay ayaa qoftii dumar ahayd laga dulkicin ka riwaay waxa ka sii dareyd cuntaaba lagu kari waayo waxba cuni weyd sheeko kala laga guriyihii magaalada oo dhan iyo magaalada sheeko kale ma ahayn inantii waxa uu tagay ninkii magaalada xukumay odayaashiiba uu tagay ehelkiiba uu tagay waxa uu tagay dadkii markaa ugu magaca waaweynaa dalka cid kasta istiri bariday naaqo cid kasta dhimanaysa ka kac qabrigan ma yahay way diideen ka kac iyadoo sidaas oo laga qustoo leeyahay markay go'doonayeen ku dul aasno ayaa nin qaatay dariiqa la qabtay waa nigii sheegay ninkii baa la dilay ninkii markii la dilay baa meel qabrigii ninkeeda u dhow la soo dhigay nin askari oo dhalinyaro ah waxa la yidhi ilaaliyaan la aasnin ninkii askariga ahaa halkii arkay lagu sheekadii uu hayay markuu meydkii soo dhigay meeshii dul fadhiistay laga tagay ayuu arkay qof dumar halka fadhida waa gartay inay tahay inantii ninkeedu dhintay ee halka ku murugeysnay u yimi abaar bul hadlo waabay u jawaabtay isagii uu tacsiyay wuxuu yidhi ka samir marxuumkani dhimay way ka aqbashay cunto u dhigo cuntadii bay cuntay dadkii baa maqlay oo farxay oo ninka askariga ahaa bay gabadhii maqashay oo cuntadii way cuntay oo intiina way joojisay bal hal yara sheekayaha ma weeliyaha la daayo intuu iyada ma weelinayay isaga dhaxa gaadhay oo ku dhagbasay meydkii ayaa la qaado ehelkii meydkii hadana qaad dariiqa ayaa la qaado laas sharcigu wuxuu ahaa marka askariga meydka wiilaanay qaad dariiqa laga xabo in isagana la dilo subaxii baa dabeed la arkay meydkii la aasoo la waay askarigii baa la dilay askari markii la dilay ayaa lagu aasay meel u dhow halkii ay fadhiday gabadhii oo dhowrkii saacadood dawlad jooga wax cuntay oo dadkiina nafisay oo hadashay ayaa markii kii askariga la dilay uu himbalooday hadana cuntadiina weydiitay dadkii baa u murisay buu adiga cuntada cunay ee nafisay marxuumkii ka samray maxaa kugu dhacay maanta isagaba uu yeetay haday aad u isaabale ma satrikii dambe xikaayaadka qisooyinka murtida iyo maada iyo sheekada inoo dhax aynu bilaabano
waxaan gooli ku dhex jiraa barnaamijkeennii ah konton sheeko iyo sheeke sheekada labaad ha tegina isuga waa tan sheekadii iyana waxaa la yahaa geesiga cagaaraa waa sheeko gaaban oo dalka ingiriiska aynu ka soo qaadanay waa sheekadii gaabneed ee u horreysay ee af ingiriis ku qoran ee iyana la helo hase yeeshee ninkii qoray aan la garanayn waa iga arar iyana geesiga cagaaran intiina sheekadiisa u gelin aan taariikhda hore galle waagaa sheekadaasi ay ka sheekaynayso ciidamadan militariga leeyahay hadda adduunka oo dhami leeyahay qoloba magac hawla baxda ee difaaca dalka ka shaqeeya ee dhistani ma jirin waxaa jiray niman loo yaqaanay dagaalyahanada oo marka dagaal dhaco loo yeedho oo ka tirsan qayb kastoo bulshada ka mid ah raggaasi waxay lahayn direeso caana waxyaabaha ay ku dagaalami jireen hubkan casriga ma jirin waxaan warmo seefo iyo wixii la mid ah iyo tooriyo gaajidkooda faras buu ahaa waxay gashan jireen iyaga laftooda taangi ahaa waxay gashan jireen koofiyada bira oo seefta liskaga celiyaan iyo shaarad bira oo diric loo yaqaanay carabiga ragga waxa loo yaqaanay dagaalyahanka afka ingiriisigana waxa loo jiray knight waa dagaalyahan marka dagaal dhacal loo yeeri jiray laakiin marka ay bulshada dhex marayeen waa la garan jiray oo diriiskan ay gashiina dabirta iyo seeftan iyo faraskan baa la garan jiray inay ragii dagaalka u tababaraa min hadaba goor asar gaababa safara oo isna faras wata oo meel maraya oo danun u lahaa dantiisaasi hadda innaga lama khusayseen oo ku sii jeeday reerkiisii ayaa waxaa wadada dhinacii kale ka yimi oo ku soo baxay nin raggaa dagaalyahanka ah oo dhar oo diriis wada cagaaran xiran wada dooga oo markuu ku soo baxay faraska soo soo eriyo hilaa wadooyinka waaweyn ma jiro gaajidkan waaweyn maraama jireen wadiiqay ahayd dadka lugta iyo farduhu maraan inta kalena kaynbay ninka wuxuu ka baqay in faraskan soo duuban ee ordaya iyo ninka saaran birta miilan gashan ay jiilaan dhinac buu ga leexday markaa oo isna ku dhaafo mabuu dhaafine markuu soo jiro ilaa dhowr talaabo ayuu faraskii joojiyay siiga labadoodiiba qarisay markii siigadii degtay ayuu la hadlay ninkii waa la is salaamay waa kan ninkan inuu dagaalyahay ka kalena iska socotay hadal la yaab ku yidhi ninkii caadiga ahaa socotada kii dagaalyahanka wuxuu ku yidhi waxaan kaa doonayaa niyo saacada la joogo halkaasaynu taagannahay maanta bishoo taariikhdu intaa tahay inaan halkan fadhiisanaya qoortayga jirto adigana sanadkiisa saacadeeda maalinteeda isla goobtan aad timaado aan qoorta ka jiro ninkii baa qoslay wuxuu u qaatay ninkani inuu xanuunsanayay waa ninkii dagaalyahanka buu la yaabay ninka dagaalyahanka koofiyad biro qaba indhihiisu ba arkay intiis kala maarko oo wada bir wuxuu gashay marka intuu qoslay buu ku yidhi waxa ka wanaagsan inaan qoortaba iska goynayno iska tagna maxaa waxaanu ka fikiray haddana bal ninkan waa la kula hadda qoortayga goo oo ka dambeeyay kaaleen qoorta ka gooyay haddaad qoorta ka geyso mi waali soo soo loo kara ninkii erey ragu bariga ka xanaaqi jiray oo fulanimo ah ayuu ku yidhi ma fulata ninkii faraskii ka soo booday uu dhamaanad fulaylaada reerkayga baa laguma sheegin waxaan ku sheegayaa maad naftaada u tudhi kaaleena ka goynay qoorta hadda doonaysay ninkii wuu soo degay lukii buu fadhiistay markuu foorsado birtiis ka saar markaasuu dhigigu qoorta ninkii oo le kulli qoor baa soo noqonaysa isaga qoorta ka gooyay iska tagay inta fulu kugu sheegi lahaa ayaa qoortii ka jaray ninkii ayaan daro qoortii inta halkaas oo kale ku dhacday ayaa haddana dib soo booday oo ninkii ku soo noqotay ninkii koofiyada birtaad buu gashaday oo faraskii intuu fuulay buu yidhi hay laabin badnidii ballanteena hay laabin raguna beriga ballanta waa adkeyn jiray beentan maaqun ninkii tala ku cadaatay safarkiisiba halkii ka dhaqaaqay wax yar markuu socday ba qoraxdiiba dhacday hareeruhu eego waxa arkay beer weyn iyo aqal ku taala aqal ku yaala basuucaa halkan iska bari beertiiba ku leexday aqalkii waa nin xoolo leh ninkii baa soo dhaweeyay oo qasri weyn u dhisay oo beerale iyo xoolo iyo wax walba waa la marti qaaday xagaad ku socotaa loo arintii socdaalkiisu ka waramay markii dambe haddana ka sheekeeyay ninkay galabtii kulmeen qisadii baa reerkii la yaabay afadii ninkaa waxay ku tidhi oo heedhe ma iskama baxsatid ya maxaa kugu soconaya meesha ninkan haddii qoortiisii isagoo la soo noqday adugu ma qoor soo noqotaad leedahay hay celin buu hadalkaa anu nin baqamihi nin ballan baajeenamihi ninkeedii oo maqlayaa ku yidhi ninkan waa nin raga daa waa soo noqon nin raga waa kii ballanti fuufiyey
ويا بيوح مدلة تريبة المدة وقامت هاي مدة جبل الجان نكي برتي بكسون هذا يلا صدق شو هرسنتها مركز سؤال صدق شو ريركي هابين كأت كويت وطك ريركي بوتي نكي بسول دوي ما تبي لها والكبي هميكيو وذا جوا عصير مركز العليا كنت المرات هذا كشيء ذا صور نقطة إيش كنت شو صدق شو صدق شو تشوف ما أنت صدقات بس عدي تيجي ماشي سواء بقى سيهر يعني سواء فرس كي قاصن ولا بتك عيار وسيفتي هايستا بقى سوق سلو ولا وقرينا نرجع تاي ما تيمي ها سكور رايق مني هالكي فريستو وفريستو ما هو على حكومي ولا المسك كيتين سحب العيال لا هاي أنا صادق كل قرطي صون قن ما يستني كم مسكين كان هم مسك كيتين على الكيس كده فريستو وفريستو لأن سيفتي أيو كرقاب مركب الحاد بكتابسي مرلبات كهدنو كالي مسدحات كم كسرة مسؤول استاج نكيم مسؤول استاج مسؤول فول فرس كذا مركب فولي يقولي كسكت مسؤول وين تجي دوري واحد يقول أنت واحد ECD سكو يدي دلويد يو واحد لبات سير سيف تيجي على سمرة يكسرتين ورتوح كود دلواي كيس فاشة كيس لما دلو طلباتنا أن كاجا ورمي واحد لبات سير سيف تكاجا عليه مرة كسرة labada jeer hore waxaan ku tusay ballantaadu wafsay mar saddexaad ka sac calaalkiiba ka jariyo inta calaalkaay ayaa ka shari geesiga agaara ha ku soo noqonin hadii qoortaleed ka jarayo ballanta ragaasi sidaas ay ahaan jireen waa barnaamijkii konton sheekiyo sheeko sheekadana saddexaadna barnaamijkeena ku soo qaadanayno halku dhigeeda waxa la tirada wax ka dhin tirada wax ka dhin ويجا عررني وين وشاكين يا ما هذا يا ما أقولن كرتين بين بتشيسه نبح صوت بدن أيها نكلا الرجال صوت صاري ترى ذا وحكدين أنا شكذا قال حتى به الكودية اللي هي ترى ذا وحكدين بريجو هور دل كنا باور تقوي العيان أنا تشرين باور ترى بدن ترى والله وحيا هاي فك ترى تشلي ونك ترى والك وحوها ترى شو إنك أوصل ريال دل كان كمذا مركا الله بنو ترى والله أو صاحبه أي نصاحب كذا يلا مذا وبالعملها وأنا مركا باور ودن أيها باور نتركي لسودي وباور كيوديبي labadii baa u saxaatay ninkii markuu baxay isagoo baraka baxaya markaasii warta waan naga bila amalka ah waadiga shaqada helay masuuliye ba soo raaca safarka horeeyaba xagga barigu baxay ergaabe baaburkii iyana raaceen baaburku raacay waxay fuuleen damanka halka sare waa baaburtii dhiga lahayd waa weynayd burca markay ka baxeen oo ay banka sii socdaan ayaa labadii sheekaysteen baaburku rakaabka la misidin uu raraam waxay saareen halka sare من كم إذا شيكي ويدي سمكوا مركو انتهى أي أين عبد الله حسن يتراويش تيسي بنكنا إنه مرة إنه ويركوا سوق هذا أنا إنجليز كانوا شقين يو كامل كوركيبان هابون إذن وتين عبد الله حسن وبقول كورونا في أفردولية أي أن بنكا يسكو قبصني أن نقول ركوبلية والله سني أفرتنينا ميت كودي بحكالله وراي سيد كي يرغم ذا أي دقيقة بحصدين halka markuu sheekadii marinayo ayaa ninkuu sheekeynay ee ka guriyay hadalka intuu aamusay ayuu damanka baaburka garaacay darawalkii markuu joojiyay ayuu digay daaqada intuu istaagay ayuu kala baxay miftaaxi baaburkii intuu waqtiyay wuxuu fadhiistay geed halkaas darawalkii iyo ninkii kala soo digay waa loo yimaad maxaa baaburka waqtiisa maxaa ku fadhiisay darawalkii baa ku yidhi noo sidaan soconne markaasuu saaxiibkii intuu farta ka fiiqo ninkan tirada waxa ka dhima tirada بس ترى ذا وامحى بس أنا أوي ولي هبلو بابو كذا كذا دقائق ما يلا ترى ذا وحكرنتم مركزين وحي هاي سدد بقول عسكريها سدد بقول الترويج بها أنا وحاول تشتري يلا مركزين ماي ترى ذا وحكرن مركزين لا بقول الترويج بها يطبن ركوبلية وكامل كورة مسؤول مايا ترى ذا وحكرن مركزين ما بيتشرين بقى تراويشنا ما تشرين كامل كور ما تشرين أنا أقول ما ودن تقال ما دين مركزين هو مفتاح عن دقائقنا حتى هو يعني ترى ذا وحكدين وبرنامجك أنه هو ذي يسوى برنا وبرنامجك لو بحكون تشيكي شيكو أو بلوه
وأنا إذا كهابي تونا هدي قال لي سومالي نيوز تي في أو تضبط لك كستا وقت كانوا كله أطاوان كرتان ويجا أرله ويجا أفتي وحنا لها إلا بين بلنتين خصوصا هذا كل كان مركا كسو حقوق سياسة كسو داشان هذا هين تقبيال ده ينكو داشان سو كسو يتنقليه النهابين كي عرضها كلاد أنا دمر كي عروضة سو قاطع قلت الشيكية شيكو كتاب كشيكو يمكن يكون قرية هاي لابا كميدون خريستا إذن كو فرحسن سيحبا